iyadoo saacado kooban kaliya ay ka harsan yihiin qabashada xilka u sarreeya ee Soomaaliya kaas oo ah madaxweynaha ayaa maalmihii u dambeeyay magaalada Muqdisho waxaa ka socday kulamo siyaasadeed u dhaxeeyay beelaha isku haybta xalay waxaa kulmay oo shir guud oo wada tashi yeeshay Cabdikariim Xasan Guuleed oo dhawaan ka tanaasulay qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya kaas oo ah musharax u taagan sheegayna inuu tanaasulay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo isku hayb iyo isku beel yihiin sidoo kale hogaamiyaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqoor ayaa ka muuqday goobta kaas oo inta badan ka soo muuqanayay garabka Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo dadka ugu saameyn badan ah qabashada xilka madaxweynaha u taagan maalinta Axadda ay ku beegan tahay 15 bisha May ayaa la dooran doonaa madaxweyne cusub oo Soomaaliya 4 sano ee soo socda maamula haddaba maalmihii u dambeeyay waxaa socday kulamo kuwaas oo u dhaxeeyay beelaha isku haybta iyo sidoo kale xildhibaanada labada aqal beesha caalamka ayaan sidoo kale ka marnayn kuwaas oo xildhibaanada inta badan ay la kulmayeen taasoo ay kala hadlayeen qofka iyaga ay doonayaan danahoodana ka dhaxarkayaan dawladaha caalamka u tunweyn ayaa qof walba wuxuu wataa shakhsi u gaar ah taasoo inta badan uu ka dhaxarka danihiisa gaarka ah Soomaaliya ayaa ku jirta xilli gabaabsi ah taasoo ay doorasho gabagabaha ay lugaha la sii galayso iyadoo madaxweyne cusub la dooran doono 4 sano ee soo socda Soomaaliya maamulo kulamadan u dhaxeeya xildhibaanada kuwaas oo inta badan isku beel isku hayba ayaa maalmihii u dambeeyay qof walba uu kala hadlayay qofka kale sidii uu u dooran lahaa qofka marka isagu uu rabo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dadka ugu saameyn badan ah qulubta shacabkana inta badan haysta ayaa waxaad ku arkaysaa baraha bulshada iyo meelaha ay bulshadu ku xidhiidho isagoo ka dhex muuqda sawiradiisa markaasi riyaaq iyo sidoo kale dabaaldeg loo sameynayo ummadda Soomaaliyeed oo muddadii u dambeysay ku jirtay sidoo kale fagaare taasoo ay ku soo bandhigayaan qofka iyagu ay doonayaan sida saxda inuu matala 4 sano ee soo socoto ayaa muujinaya in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay taageero toos u hayaan isagoo ka mid ah 5 qof ee ugu saameyn badan ee u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya 4 sano ee soo socota haddaba maalinta Axadda ayaa la waan doonaa madaxweynaha tooska ee Soomaaliya 4 sano ee soo socota maamul doona iyadoo wax saacado ka yar ay ka harsan yihiin maalinta loo istaagi doono doorashada 4 sano ee soo socota qofka madaxweynaha Soomaaliya ka noqon doono